صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كيني شلي وحي نوغو جوغي iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam loo ogolaaday inuu baxo qurayshna ay ogaatay rasuulku uu baxay calayhi salaatu wasalaam isagii Abu Bakar ay ku nasteen 3 cisho godkii la oran jiray qaalu thawr ayaynu ka waranay وفعلا hijradu ama hijradii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jirta macaalim fara badan oo u baahan mar gaar ah in laga hadlo laakiin inagu si guud mara oo taariikheed ayaynu uga hadlaynaa Abu Jahl oo runtii ahaa hogaankii loo xil saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam dilkiisa isla markaa isagoo isu xil saaray oo arinta abaabulay ayaa waxa uu tagay caradii gurigii Abu Bakr bin Abi Quhafa radiyallahu anhu dabeeto wuxuu weydiiyay ayna Abu Bakr wuxuu aabihiin xagee buu tagay marka Asma bint Abi Bakr ayaa waxay ku tiri la nadri garan mayna meel Allah iyo meel uu tagay oo ficlan way ogaayeen laakiin ballanku wuxuu ahaa inaanay sheegin xagga uu u baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo Abu Bakr bin Abi Quhafa waxa la yiraahdaa wuxuu dhirbaaxo aanay dhaqan u lahayn odayaashii Quraysheed ee waqtigaasi lagu yaqaanay hogaanka iyo akhlaaq wanaag walidaalku waxa la yiraahdaa way iskaga tageen oo sidii bay ku bilaabeen in ay raadiyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexdii cisho markii ay u dhamaadeen oo istiraatiijiyadiisu ay ahayd maadaama Qurayshi ay ka daba imanayso 3 cisho way u nasteen waxa la leeyahay wixii bari iyo galbeed iyo Allahumma salli ala Muhammadin waqooyi iyo koonfur ayaa wixii yaacay oo dhan ay u dhaafeen 3 cisho kadib ayaa wuxuu bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga iyo Aamir bin Fuhayra iyo Abu Bakr bin Abi Quhafa iyo Abdullah bin Urayqid oo ninkii lacagta uu siiyay Abu Bakr bin Abi Quhafa lacag badan buu siiyay si uu u sugo dariiqa ugu wanaagsan ee uu ku nabadgeli karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalku waxa la yiraahdaa jihadii ay ka xigtay Madiina ma ahayd jihadii kale muqaabilkeeda ahayd ee cagsigeeda ahayd ayaa runtii u kaxay halkuu waqooyi uga kicilaabo koonfur u la kacay si runtii aanay isu arag Quraysh waa Qurayshi waxa niyadeeda ku jirta maadaama halkaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam dad rumeeyay uu ka helay kulliba xaggaasi ayuu u baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam socodka dheer meelo badan ayaa runtii maray oo aan u baahnayn runtii inaynu intooda badan aynu xusno sida Imam al-Bukhari uu warinayo wuxuu Abu Bakr waxaanu ku soo baxnay dhul falaata waqti cadceedu ay aad iyo aad u kulushahay ayaanu ku soo baxnay dabeeto waxaan jeclaystay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama muddo aanu soconay isla markaa aanu baqanayno safarka oo dheer waa 500 kilomitir isla markaasi ay weheliso iyagoo Allahumma salli ala Muhammad baqanaya oo waxa la yiraahdaa Abu Bakr marna xagga hore ayuu maraa marna midigta ayuu ka maraa nabiga calayhi salaatu wasalaam marna bidixda ayuu ka maraa marna xagga dambe markii la weydiiyayna wuxuu markaan midigta istaago niyadeeda waxa ku soo dhacda bilaa rasuulka bidixda lagaga yimaada bidixda markaan istaagana bilaa xagga hore lagaga yimaada xagga hore markaan istaagana bilaa xagga dambe lagaga yimaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel banaan baan ku soo baxnay iyadoo waqtigu aad u kulul yahay si runtii lama filaana ayuunbaa dhagax dheer ayuunbaa hortayada istaagay ayuu Abu Bakr bin Abi Quhafa fastadalna fi hunak halkii baan harsanay ayuu aniga iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inteedii wada socotay
وفعلا هركي أنغو كجرنا والرسول كنا ويرى سيحدي عليه الصلاة والسلام أيها أبو بكر يلي أيها نين أري وطا أيها نقو صوبحي marka ninkii baan wada hadalnay waxaan ku war caanama leeyihiin arigo markaas uu yiri ha dabeeta caanihii ayuu noo maalay buu yiri caanihii marka weyse aanu sidanay ama weel aanu sidanay ayaa aan ku shubay hawadii baan u dhigay waan qaboojiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam waan diiday inaan toosiyo laakiin markii uu soo toosay rasuulku kaleey salaatu wasalaam caanihiyo hawadiina ay ku dhacday oo yara qaboobay ayaan siiyay buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam muddo kadib halkii ayaanu ka dhaqaaqnay ayaa uu runtii yiri Abu Bakar waxa runtii xusid mudan arab oo dhali nin waliba waxa niyadiisa gashay 100 geelo oo cascas inuu helayo hadii uu ka hortago rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo uu keeno madaxiisa ama Allahumma salli ala Muhammad iyagoo nool soo qabto ninka loo yaqaan Suraaqa bin Malik min bani Ju'sham aha ayaa wuxuu yiri anaga oo fadhina meeshayda marka Madiina agteedii degi jireen qabiiladoodu ayaa nin baa yimid markaas uu yiri sidii warku aan ku maqlay socod dheer oo humaaga dadkii socday waxay u ekaayeen inuu ahaa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib oo Quraysh ay raadinaysay oo leeydi ninka soo qabta 100 neef oo geel oo cascas ayuu leeyahay Suraaqa yiri ma imaad garanayskada halka anaga garanayna soo safarka caynka ay caynka maaha hebel waan fooftaan habaabiyay buu si aan dadka kale aanay u sii dhaadin macnaheedu waxa weeye kuwa kale aanay ugu baraarugin mar allaaliye markii dadku ay sheekadii bedeleen ayaan gurigeygii tagay gabadhii baa waxaan ku yiri diyaari yaani safqadii ugu weyneed macnaheedu waxa weeye heshiiskii ugu cuslaa ee adduun inta lagu helo fursadiisii baa jirtay waxay diyaarisay faraskaygii hubkaygii qalabkaygii oo dhan seeftii warankii leebkii wama adraaki wixii kale waqtiga la isticmaali jiray dabeeta wadadii uu tilmaamay waan ku dhuftay buu mar allaaliye markii aan ku soo dhawaaday ayaa faraskaygu uu dhacay ayuu Suraaqa bin Malik wa ficlan markii hore maan dareemin buu dabeeto barigii hore faalkii isticmaali jireen arabtii waqtiga jirtay mushrikiinta ahayd faalkaygii baan la soo baxay buu dabeeto waxa ii soo baxday war iskaga joog kamaan joogine haddana waan isku qaaday buu markii dambe markaan u dhawahay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa faraskaygii markii hore waan dhacay anigii faraskuba waan u dhacnay laakiin markii dambe faraskii ayaa dhulka galay buu ilaa xad uu gaaray buu إلا مقرتي يعني إنتاج البها ودو فرسكو عاصمي ولذلك مركزان يا محمد يعني ونقي لي بولي أمام بانكو سيرة هذا ولذلك وحوي وان وضع هذلني فرسكي يجيب عادي النقضي وحانو رنتي يقر ورقد ولذلك عامر بن فهيرة أيا رسولك عليه الصلاة والسلام ورنتي أقر وفعلا واحد ليه روايات كقاركود إن كسدو أي بدل قار أي وحكة شيئين يعني واحد يقول رسولك عليه الصلاة والسلام أدنى واحد دوني سمانت إن النبي قد يشو محو أرنكا قلنا قندونا مركا عاد حراتو نركا كسرى يا قيصر أي ليهين وفعلا كسرى يا قيصر تواني مكي الدنيا ده أردن هيستي مركز يعني كسرى ابن أبرويس ابن أستشير يعني من آل السانسان هرقل نوح الرومان امباير كبقرطويدي ده يعني في القلبات كلني أي سكوت تجاني كريستيانة تجاه نكيا يستوي وحنا المسلمين تمركي أي فرص فرتان أيام نركي بقر كمركي لصاح لي أيام مدينة لكان ووقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب ونر فهمتي دي أن لا يقاس يعني بالحساب lacagtiisa cid ka warabi kartaa dhulkaas yaani dharkaas qiimihiisa aan la garanay walidaalika Umar bin Khattab wuxuu yiri si muslimiinta loogu cadaalad falo waa dhar aad u qaaliya laakiin waxaynu siinaynaa qofku leekaado uu buu Umar bin Khattab marka qof muslima yimaada oo ka gaabta mid muslima yimaada oo ka balaadha mid kale yimaada Suraaqa bin Malik baa markaa ku jira safka Suraaqa markii uu soo galay baa dharkii loo dhiibay وحبد موديسا إن استغل لغو قياسي وفعلا اللهم صل على محمد
isaga loo tolay Suraaqa bin Malik wuu ooyay mar allaale markuu dharkii xidhay markaas Umar bin Khattab alhamdulillahi alladhi adalla Kisra wa Qaysar yani ilaahay baa mahadle ilaaha duleeyay kuwii dunida oo dhan haystay ee maanta dharkoodii uu xidhanaya nin muslim oo iska basiidi maanta dharkoodii uu xidhay limaada tabki ya Suraaqa bin Malik waxay ahayd inaad faraxdo oo aad ilaahay ku mahadisee maxaad maanta la ooyaysaa buu yidhi wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin waxaan xusuustay mucjiso uu sii sheegay rasuulku calayhi salaatu wassalaam oo mucjisadaasi oo ahayd rasuulku uu yidhi maxay noqon doontaa markaad dharkaasi xidhan doonto almuhim Suraaqa bin Malik halkii buu kaga hadhay rasuulku calayhi salaatu wassalaam waxa la yidhaa halkii buu taagnaa markaasaa uu xalaaliyo wixii uu tuhmo ee uu isiraado ama rasuulka eeriyanayaan ama nabiga calayhi salaatu wassalaam bay daba socdaan ayuu fooftaan habaabinay dariiqooda uu ka leexinay intii horena dagaal buu kula jiray intii dambana ilaa intii rasuulku uu fogaanayay ee uu libdhayay ee Allahumma salli ala Muhammad meel laga arko oo aad u fog uu tagayay Suraaqa bin Malik meeshii buu taagnaa sidii bay ku socdeen rasuulku calayhi salaatu wassalaam iyo Abu Bakar waxaanu gaarnay buu Abu Bakar bin Abi Quhaafa khiimatu Macbad islaanta la yiraahdo Macbad ayaa aanu ku hooyanay gurigeeda taambuug yar islaam baanu u tagnay khayr badan ayaa uu yiri oo daa oo ninkeedii ka maqan yahay waa meel xooluhu ay degan yihiin oo xoolaha Allahumma salli ala Muhammad degani ay abaarsadeen neef yar baa jooga oo runtii riya neefkaasi oo Allahumma salli ala Muhammad argi raaci kari waayay walidalik rasuulku calayhi salaatu wassalaam baa aad u salaamay aad u soo dhaweeyay dabeetana wuxuu yidhi miyaad caana haysaa qaalat laa bal ka waran haddii aanu ridaasi itaalka daran leh ee socon kari weyday ee guran haddii iyada aanu maalna ka waran buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam وفعلا معبد waxay ahayd baa la yiraahdaa dadka wadaday deganeedo aad dadka u soo dhaweey waaban idin siin lahaay maxaan yaani ay idin tari dabeeto waxay ridii baa la soo kaxay rasuulka kaleey salaatu wasalaam baa loo keenay marka nabigu kaleey salaatu wasalaam waa uu masaxay dabeeto ridii baa darartay halkii bay ku maaleen macbad ayaa caano badan la siiyay Abu Bakar baa cabay rasuulka kaleey salaatu wasalaam baa cabay Aamir bin Fuhayra ayaa cabay isla markaasi iyada weelkii ay haysatay ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam caanihii uu runtii ugu shubay dabeeto way ka tageen markii uu macbad yimid ayuu yaabay gurigii oo barakaysan oo caano ay yaalaan oo isagoo dhibaato badan ay jirto uu ka tagay oo ay macbad faraxsan tahay ayuu u yimid markaasuu yidhi maxaa kula kulmay waxay tiri bani aadam ilaahay abuuray qof ugu qurux badan oo aan dheerayn oo aan gaabnayn wajigiisu sidaa yahay yaani garabkiisu sidaa yahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam bay sifaysay hadalkiisu uu yahay mithla lu'lu marka uu hadlayo aad moodayso inuu lu'lu ma garatay daadinayo sida qaabka uu hadlayo hadlaan dheerayn oo runtii aan gaabnayn ayaa loo yimi oo barakaysan qisadii bay uga sheekaysay dabeeto wuxuu yidhi ninkaasi waa maxamed bin cabdillaahi rasuulullah oo qurayshi ay sheegi jirtay waan ka daba tegi doonaa halkiisaan ku gaari doonaa si aan runtii u noqdo nin muslima oo dariiqiisa raaca وفعلا واحد لين روايات كقاركود وكذبت الرسول عليه الصلاة والسلام وهالكاسي أي رنتي أضيقاس كو إسلام النبي عليه الصلاة والسلام مركي أوسي سعودي معبد لافي وحاول كل مي سفر أوه قامني الزبير بن عوان أو شام كيمين أو الله بدن سيدا مركي النبي عليه الصلاة والسلام إيو هقان كيدي ودي عامر بن فهيرة أو بكر بن أبي قحافة درعة عط ayuu siiyay oo ficlan ma laba goob uu siiyay ma saddex goob uu siiyay oo goob cumaamada iyo laba kale mise dhar cadcad buu siiyay baa runtii riwaayadu ay oranaysaa
dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam dharkii quruxda badnaa ee caddaa ee cusbaa bay qaateen sidii bay haddana socodkii ay ku wadeen maalin runtii isniina bisha rabiicul awal ay sideed tahay sanadkii 14aad ee nebinimada isla markaa noqonaysa sanadkii koowaad ee hijriyada ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu gaadhay magaaladii Quba la odhan jiray oo ficlan Quba waxoogaa bay u jirtaa magaalada Madiina halkaas nabigu calayhi salaatu wasalaam runtii uu degay Urwa bin Subayr iyo ayaa ku soo dhaweeyay meesha rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam muddo ayuu meesha joogay 4 cisho joogay bi riwaayadka qaarkood leeyihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu meesha joogay wuxuu ku degay baa la yiraahdaa Kalsum bin Hadmin ninka loo yiraahdo culimada qaar waxay leeyihiin Sa'ad bin Khaythama ayuu ku degay adigu labadooda mid kamid ayuu ku degay rasuulku calayhi salaatu wasalaam 4 cisho waa meeshii ugu horeysay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dego rasuulku wuxuu ka dhisay masaajidka loo yaqaan Masjid Quba waana masaajidkii ugu horeeyay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhiso isaga gacantiisa ku dhisay isaga ayaa xoogiisa ku dhisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada oo dhanina runtii way caawineen walidaalka meesha waxaynu ka qaadanaynaa qofka muslimka marka uu guri degayo ama marka uu sahaaminayo meesha guriga ka dhisanayo waa inuu ama masjid inuu ku agdhawaado ay tahay ama hadduu awoodayo masaajidkiiyo gurigiisa uu israaciyo ayay noqonaysaa inkastoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo guri dhisan masaajidka uu horeysiiyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam 4 cisho markuu rasuulku Quba joogay ayaa uu ka baxay isagoo runtii ay tahay inuu gaadho magaaladii Madiina ansaar oo dhan baa soo baxday oo runtii reer Bani Najaar ay ugu badan yihiin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii aynu ka waranay runtii de xagga abtirsiinta abtiyo ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aabihii ay dhaleen sidii runtii aynu ka soo waranay oo Abdul Muttalib ay dhaleen walidaalka wax weeye xaggaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaga abtirsan jiray xagga xidhiidhinta almuhim reer Bani Najaar ayaa u badnaa dadkii 100 nin bay keeneen baa la yiraahdaa waayo inta hore wali Madiina dad badan baa islaamin waxa kamid ah Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo runtii markaa u sharaxnaa inuu Aws iyo Khasraj boqortooyada u qabto oo ficlan maqlay soo dhaweynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jacaylka loo hayo iyo sida loo yaani magaratay dadka laabtooda ay u doonayso walidaalka si inta hore loo ilaaliyo dad badan baa u soo baxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxana la yiraahdaa Madiina oo dhan baa gariirtay dadkii soo baxay ee fardihii soo dhaweynayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la yiraahdaa markii uu baxay Jumca Quba markuu in yar dhaafay waa Jumcuhu uu qabsaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaasi Quba iyo Madiina bartankeeda waxa uu ku tukaday jimcihii ugu horeeyay ee muslimiintu ay tukadaan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam halka ku tukiyay ilaa 100 qof ayaanay ahaayeen dadkii la tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu baxay calayhi salaatu wasalaam ee uu Madiina galay ayaa saxaabi waliba oo ansaarta kamidii uu diyaar garoobay isagoo la yaa rasuulallah cala rahbi was-sa'a halkana dhawaansho iyo ballaad ba aad ka helaysay soo dhawow walidaalka nabigu calayhi salaatu wasalaam hashiisii uu fuushana ayuu daacuuha fa innaha ma'mura xagga hoggaanka sare rasuulka ilaahay baa ogaa meesha uu haboon iyo meesha la dejinayo maadaama dhul cusub uu degayo iska daayay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hashaydu way amran tahay iyada garanaysa meesha aanu degayno ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hashi rasuulku meel bay degtay sida runtii Zaadul Macaad uu sheegayo meelaha qaar koodna Sahih al-Bukhari ku sugan inta meel istaagtay ayay dhaqaaqday markaas ay haddana meeshii istaagtay oo ay ka soo noqotay walidaalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii uu calaamadiyay wuxuu yiri halkaasi waa halkaynu masaajidka ka dhisayno ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam Madiinada meeshii ugu horeysay ee rasuulku uu ka calaamadsaday guri dheer kama calaamadsan meherad weyn kama calaamadsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu ka calaamadsaday Madiina markii uu istaagayna halkii masaajidka uu ka dhigi lahaa maadaama masaajidku uu ahaa taliska guud
dowladdii islaamka ahayd ee rasuulku uu aasaasay calayhi salaatu wasalaam halkii looga talinayay uu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaartii qof walba wuxuu dhahay yaa rasuulallah xaggan ku soo dhowow walidaalika waxa weeye hashiisii baa meel fadhiisatay rasuulku wuxuu yidhi meesha ugu dhow ayuun baanu degaynaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almar'u maca raxlih walidaalika waxaa la yidhahdaa abaayub alansaari saxaabiga la yidhaahdo وفعلا خالد بن سيد مجيء سعادي وها أي رسولك عليه الصلاة والسلام مركبة إسقوا قاتي ألابت رسولك الله عرري وقولي سجى رسولك نوح لماش إنه وجوده ألابت يدينا للرجاء بان تجي أبو رسولك عليه الصلاة والسلام مركا خالد بن سيد أي ولد النبي عليه الصلاة والسلام قصص بدن ورنتي بعضها درجتي سواء صحيح تهاي بعضها درجتي سواء تهاي حسن بعضها درجتي سواء أي مدى قار ضعيفين وآدي أضو بدن أي رنتي لغا شيغا خالد بن سيد انتي ولا جوغي رسولك عليه الصلاة والسلام أبا أيوب الأنصاري وصحابة أينو كور ربي دونو وقصص كاسي رنتي أبا أيوب يو رسولك الأحمري انتي ولا نولا هل كيسين إن شاء الله تعالى وتجي دون رسولك هالكاسو دق عليه الصلاة والسلام aadna runtii waa loogu soo dhaweeyay Aisha bintu Abi Bakr waxay tiri markii aanu Madiina degnay isbedelkii jawiga ayaa runtii waxoogaa nagu keenay walidaalka waxa way saxaabadii muhaajiriinta ahay way xanuunsadeen yani isbedelkii runtii hawada qaarkood jirkooda ayaa wax ka soo baxbixeen oo runtii xoqniin iyo wax ay sameeyeen qaarkood sidii duriga oo kale ay runtii wax ugu dhaceen تبت رسولك عليه الصلاة والسلام سيرتي صحيح البخاري كسوغان مدام مدينة أي تاي مقالة بركيسا اللهم حبب إلينا المدينة إلى أهي مدينة نتشعليسي كحبنا مكة أو أشد حبا سيدا أنه أتشعلنا هاي مكة رسولك عليه الصلاة والسلام للك إلى هاي أكوغو أبوري أيوم بعض هذا للك لما اللي هذا بني آدم كو حبو ملكية حبو ملكية انت ملكية سوا محي وانت تكو أبورنتي وانت عمرته وانت تكو تكنيسه وانت لغو آسي وانت إهل كانوا كنوا ليحي ولذلك قال أظن وحي لهذا وحلا إلى هوم سك باكرة معناه ده وحوي هلو باكرة أنا قفك بني آدم كوي هلو بايو ماشي تتكيسي إهل كيسي أي كنوا ليهين يعني وهلو بابي هذا لكن إسلام كابت الماضي لذلك رسولك عليه الصلاة والسلام حليه مالتي وكسب حينا ما كسر رسولك واجي وكان يبكي يسقو أوي وحديث ترشدي سواء حسن تاي وقدك الماضي أي لافتي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني ما أحسنك بلدا وأطيبك وما حيدلك كاون أكسن دول كاون أكسن مشرو وماشي الله لقو أبوري ولذلك وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني لولا أن قومي أخرجوني ما سكنت غيرك رسولك وحده هدي أن تلقي حوق إيجا صارن ميلان مكة أهين من دقين بور رسولك عليه الصلاة والسلام ولذلك واحد المامي سا النبي عليه الصلاة والسلام سدوا إلى لنشري للك إلهي كو أبوري مكة إيه مدينة دارتي وحوشان بقولوا كيلومتر ضد إهلو يسدوا وبيل ودقن بياهي ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وحبريه إلهي ونجعليسي بوري مدينة سيداد نجعليسي سي مكة ماشي أدلغو أبورتين كل كورني سيداد إلهي ونجعليسي سي وصححها إلهي وعافمات نقصي بوري وبارك في ساعها ومدها إلهي وحوي ويل كذا وحلقو ميس ومد إيا صعبة مركا الاستعمال الشريك لبضبة نو بركة وانقل حماها إلهي ونقاد بوري حمد ذا فاجعلها بالجحفة مركا ميل جحفة لورنشري إن إلهو ميلان ميشان أهين جي حمد ذا أي رسولك عليه الصلاة والسلام وكدعي